السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta halkan waxaa fadhiya kooxda xidigaha geeska oo shijarayd ku qabanaya magaalada Hargeysa kaas oo ay kaga hadli doonaan arrimo ku saabsan kooxda oo mudooyinkan saxaafaddu qoraysay iyo arrimo kale oo taagan. waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha kooxda Xasan Saleebaan Dhuxul Laab Saalax. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان شعب كقيبه سكال الدوام وحن ليها عيد وناكسن سيدو كلا تاغر ياشا كوحدة حديقها جيس كاميلا يشوغان به وحن ليها عيد وناكسن وحن مناسبة عيد الدرتيد سلامة يا مدحوينها قرنكا مدنا أحمد محمود سيرانيو مدحوينها كحيجين كجمهورية الصومال لان عبد الرحمن سيلعي مرود كوهذا قرنكا يمرود الله بعد قرنكا انتا مركان كيماتو waxaa jiray waraysiyo yaryar oo aanu bixinay kuwaasi oo jawaabo qaldan ay ka soo noqdeen. waxaan cadeynayaa marka koowaad waraysiyadaasi noocay doonaan ha ahaadaan iyagoo suugaantun ku salaysnaa cid kasta oo dhibsaday aan ka raali gelinayaa. waxaan cadeynaynaa in kooxda xidigaha geesku tahay koox ku dhaata u dhashay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku faana haddana nahay kooxda xidigaha geeska markasta waxaanu ku faanaa oo aanu ku faraxsanahay inaan fanka hooyada Hargeysa kor u qaadnay. waxaanan soo dhaweynaynaa cid kasta oo fankayga ku soo hirata taageerayaasha sidoo kale meel ay joogaana waan uga mahad celinaa sida ballaaran ee ay dareenkooda iyo dhagohoodaba noo siiyaan. inta markaan ka imaado waraysiyadaanu bixinay qaarkood ayaa telefishinka Universal oo kale waxa telefishin jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumaddu ay ka xayirtay waraysigaanu siinay shacabka iyo xukuumadda oo ka raali gelinayna. waxaan shirkan jiraayid aan kaga faa'iideysanayaa talada kooxda xidigaha geesku ma aha mid uu qof kaliya gaadho waa talo wadareed markasta aanu rogrogno oo aanu go'aan mid qaadano. sidaa darteed wax kasta oo xidigaha geeska ku saabsan waa fan siyaasadda kooxdu way ka madax bannaan tahay. waa koox dhalinyaro ah waa koox sida ay dadka ugu faanayaan loo baahan yahay inay dadkuna ku faanaan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدا قدوميه الشيخ حسن كوح الحديقة جيسكو وكوح كمدة أركتي كستا ومركاسي عقاتان ومد سنين سياسة ومد سنين لقالة بورد ومد سنين شيء أنا هين فن انت هالكم فردة كان عدكيسا حديقة جيس كدغاي كان ريديسا لحنكيسا حديقة جيس كدغاي كان وعرو وحا كدغاي عدكيسا كان ويسجاغو وحا كدغاي عدكيسا نينكن waa maxay miir waa kamanayste waxa ka dhigay kamankiisa gacantiisa ninkan waa maxay xarago waa qaybta warbaahinta ayuu qaabilsan xidigaa geeska mihnadiisa ka dhigtay. intan maaha waxa jira qayb farsamada duubta Abukar baa kamida oo imika meesh jooga ay duruus oo xogayaha dhan kooxda oo aan haysin ereyana sameyn hadana xogayaha kooxda mihnadiisa ayuu kooxda kaga mid yahay oo waxbuu duubaa. Axmed Weli baa kamida oo muusiishana wuxuu kaga mid yahay mihnadiisa. inta maqan iyo inta joogta nin kasta wuxuu kooxda kaga mid yahay mihnadiisa. ninina shaqada siyaasadda ma qabto. Somaliland maanta kama mid noqonayno oo xornimo sumad leh. nimankii waa nimanka halkan fadhiya goonisutaag nimankii heesta waa nimanka halkan jooga ninkii sameeyay halkan fadhiya. heesa badan oo wadaniyada ayaanu qayb ka qaadanay xataa dhaqaalaha mararka qaar wadanka gudihiisa la gelinayo ayaa kamida heestii wadada loo sameeyay
dee annagu diray sakhtaraanu xidhnay nimankani salaadii bay ka laheen madaxweynuhuna ma ogeyna wax cunana calooshoodaa marnayd wasiirka arrimaha guduhuna ma ogeyna wax cunana calooshoodaa marnayd qarannimada ayaa ka lahisay haddii telefishinada afka soomaalida ka baxaa qaarkood af soomaali aanu kaga heesno macnaheedu maaha inaanu ka turjinnay inaanu ka mid noqonnay waanu qaran kale ka mid noqonnay fanku siduu xor yahay baanu xornay somalilandna waanu nay berrina waanu ahaanaynaa maalin kaloo soo socotana waanu ahaanaynaa waa salaamintiin somaliland iyo saamaynteed ku yeelan doonto sama loo arki karaa inaad markaad hawshiinni gudateen ee waxaad qaban lahayd qabateen inaad imka dambe basiisaan horta heese jacaylaanu qaadnay heesoo gooni isku taag u kalan dalkan iyo dadkan u qaadnay umaanu qaadinay heesaha jacaylka ay kala duwanaanu qaaday ee kooxdu qaaday markii aan hadlayey waxaan idhi waraysiyadii aanu bixinay dadka ay dhibsadeen cid kasta oo waraysiyadaasi dhibsaday waxaa laga yaabaa in telefishinka soomaaliya ay dad badan reer somaliland dhibsadeen waanu ka raaligelinaynaa annagu haddaanu ka soo baxno universal haddaanu ka soo baxno kaa soomaali weyn haddaanu ka soo baxno kan qaranka iyo haddaanu ka soo baxno ka elitariyaba fanku mar kasta uu ka madax bannaanyahay siyaasadda imigaan ku leeyahay berraan ku leeyahay xidigaha geeskuna waa dhallinyaro aan ku sifoobin ka mid noqoshada iyo ku milmidda siyaasadda sideeda bannaana annaga waxaana hor yaalla qalcadaha fanka inaannu qaadno oo aan diiriir fara badan oo fanka ku xiran duminno maxaad isku kalifay adigoo raaliya gudoomiyada telefishinada waxaan ugu kalifay ummadda af iyo dhaqan wadaagta leh soomaalidu meel ay joogaanba codsiyadooda nagu farabatay inaan taageerayaasha tixgelinno oo ka wajeer jooga iyo ka jabuuti jooga codkaygu meel ka maqlayo aanu siino waxaan ugu khasabtay codsiyadooda waa mahadsantiin